Adani mana es? حافظها وتاجنا صباح العفو بصر ورادو خلاص هلا يعني كويس أيه صاحب سيف عم بهوش هذا صباح يعني دي وأنا سمعت لعبت ماشي أو شادي إني كان ساعد في صدري يعني تفضل بس وأنا محسوس شغلة دي خلاص صح أنا محسوس سؤال يقول لي قال لي ويسوي نفسه
يوم بتسكي أحد هاي ما أصلا مالين أنا سوتش إني إبراهيم كبر هذا هو دفر بنكار وقطع أدي وقت سنة ها وقينا هذا هي بوك وحبا يقعد عنا ها وان هذي مالتي وان كاتب يعني بدل ما كاتب هذي دول المغرب ويدي بوكا تسافر بدل ما قطع لكن وحكوا هذه هل تسوي ذي عبسي أنا قا أخذي إياه لكن يمي سورة كلمة إن أنا بيا قصري قصة كشي كنا سيارها قصة ذي لكن سؤال حتكون شغلة قصة ذي وحكوا هذه قصة ذي عبسي قصة هاي قصة شايلة وأنا يا تحمل ضميت اخترت كتب هذا عكره اخترت بعدي وحامل العبد إن أنا توقفت سيان وجهنا ربي يدلي وانتس maalintaa wixii ka dambeysay caashaq iyo wax jacaylaba madaxayga waa ka baxeen niyaddeydana waxaa ku jirtay midun sidaan raggaa uga aargoosan lahaa واريها السلام عليكم. حديث خير ما خير والله. down fadhiiso de anigu waan baatani saraka ay saraka 2 3 4 5 saraka hop hop box hop hop kick hop hop back tolio back up one ay back kick 1 2 hey 1 2 قصة لكن ما يدري ما يستري كتاه
ku dhamaystiraya. قرعي وقرعي والله lacag xun baan lafaha ugu jijibiyey laakiin saga ka hadhi maayo kaa oo dhammayn doonaa Posso que muito. Hakul ada. Boya era bane. Malay ba lagu qaadaa oo kalaagiisii ugu yaragii kale imikana mid inaan u waarsado waayaan كاسو حفر بين بيتي قال شاء الله حسيا حولنا كانوا نوصل mishinadaad leedaan way nagu soo socdaan dhinaca qiimaamaadka la hadashaan kuwii qaabino shuruuc soo dejino in kortigi doona sida ugu fiican ee ugu munaasabsan ilaahay laabina mishin kasta intaan la fulin waa inaad horta price-ka wanaagsan aad usii sheegtaan maxaa ku dhacay ninkii aan berigii badda ku rinay wuu nool yahay kaaligu siduu weli nool yahay ninkii imkaan saragnay waana nool yahay maxaa ku heleen war imika waan daalanahay hadhow baa idiin imanaya xoog waa rag ka mid ragga magaalada ugu waaweyn kana mid ah ganacsatada magaalada qaanta ku haysata waxaana agtiisa mar walba aan ka fogeyn bodyguardkiisa oo iyaguna tuug ka daran ah isaga waana mar labaad waa ninka inankiisu uu damcay inuu guursado hanideeda mar hadday ku guulaysan waayeen dilkayga aniga ayaa maanta abaalkooda maranaya magacyadoodana adduunkan dushiisa waa inaan ka tirtiro dambaskoodana ciidda hoos mariya maaha maanta inuu mid qulaato ka mid iga badbaado
telefoonka sidaada markaan ugu maqayn markaas saa qalabkaas ninka hadda la doonay soo qabto waa in inanta la soo qabto soo qabto haye hawsha aniga soo dhammaynay mudane lagu hadlay صح